الله waxaan maanta ku soo dhaweynaa degmada Lookor gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne ee waqtiga dhow insha Allah oo aanu si buuxda u taageersanahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waan ku soo dhaweynaa gacmo furan insha Allah rajaynayna inuu ku guuleysto waqti dhow doorashada madaxtooyada dalka isagoo aan filayno inuu wax badan ka bedeli doono degmada Berbera oo dhammaanteed baalbabada loo xidhay anagu saadalunahay asalug lahayn anagu saadalunahay asalug lahayn bayanka adoo wanaga suwer baana dhalay duriyadii suwera waa leeyada ula jabin shakabta wada duubaniyo ha iska reebin wadani ilaa dakadiya madaar ilaa haamihii Berbera markuu daarihii xaraashay markuu hantidiina boobay dadka la xaraashaya dilaaliin baa ku maqan rabbow naga soo gaar kulmiyo cabayinkii ay dhammaan ka koobnayd degmada Mandheera intaa waxaan ku darayaa anigoo ah xogayaha kaambeynka ee gobolka Saaxil waxaan leeyahay xukuumadda iyo xisbiga isxambaarsan ee kulmiye waa leedinka dhaqaaqay Saaxil kama dhaqaaqin kulmiye haddaynu reer Saaxil lahayn soo kamaynaa tashan waxaanu leenahay gaga cidlaabaad xisbiga kulmiye taagan tahay waxaa si baa kalena waxaan u dirayaa shaqaalaha dawladda ee gaar ahaan ka soo jeeda gobolka Saaxil ee mar walba kaambeynka aan loogu talagelin ku haya guud ahaan gobolka waxaan leeyahay hadduu sharcigu idin qaban waayo waa sidaan hore idinku sheegay oo sharciga shaqaalu idin qaban waayo maxkamad baanu idinla tiigsan doonaa sidoo kale halkan waxaan iyadana baaq uga dirayaa maamulka xisbiga kulmiye waxaan leeyahay haddii maalinta uu halkaa marayo Cabdiraxmaan aad calamada nala Berber ordaysaan aad joojin weydaan annaguna waxaanu samayn doonaa foodo intaa ka badan idinlada daba fadhiisan mayno waxaan ugu wadaan waa foodo waxaanu leenahay sharciga hal la ilaaliyo in waxyaabaha xusuusta gaar ah aan soo aragnay waxa kamid ah Berbera dhulkeedu waa la boobay dhulkii shacabka dhulkii danta gudaha waxaad arkaysaa deer miidhan baa ku xidhan in gaar ah baana qaadatay markaad aragto deer 50 mitir ama 100 mitir ama 200 mitir lagu wanayo qof baale kana yaale qof baale waa shakhsiyaad kooban oo gaar ah markii dhulkii banaana oo dhan la dhameeyay hadda waxa loo soo galay dhulkii ciidamada xirooyinkii ciidamada hadda waxa gacantii dawladda ama gacantii ciidamada ka baxay oo gabi ahaanba meesha ka maqan xiradii mayaag waxa ka maqan xiradii lama galay sidoo kale goobtii taariikhiga ahayd dadku ay ka hadli jireen 26 Juun ee magaalada Bartangeeda iyadana waa la balooreeyay oo waxay noqotay maanta hanti ama asad qof gaar ama dad gaaray ay leeyihiin taa waxa ka sii daran oo iyaduna dhibaato ah xiradii beeraha oo ay lahayd wasaaradii beeraha iyadana dhulkeedii qayb ka mid ah waa la qaatay marka gobolkii Saaxil waxa uu noqday mid gubi ahaanba ka baxay farihii ama gacan ku hayntii dawladda in dadku waxa inta badan u muuqda oo ma ay hadal hayaan waa dekado DBO lagu wareejiyay madaarkii Berbera si sharci darro loogu wareejiyay Imaaraadka haamihii oo koox ganacsatada lagu wareejiyay leerkii oo kadaalid koox ganacsatada lagu wareejiyay laakiin waxyaabahaas oo dhan ka sii darani waxa weeyaan hadduu Ilaahay bilankii leeyahay waa dhulkii iyo hantidii iyo asadkii qarankan iyo dadkan lahaa iminka la heli maayo meel laga dhiso isbitaal la heli maayo meel laga dhiso jaamacad la heli maayo meel laga dhiso iskuul la heli maayo meel laga dhiso garoomo waayo wixii waxay noqdeen dad baa qaatay marka xiriyihii ciidamada haddana la maraya taasina waa waxyaabaha ay keentay xukuumadan iyo xisbigan kulmiye ee muddo 7 sano dalka ay ka talinayay reer Saaxil waxaan u soo jeedin lahaa muddooyinkii u dambeeyay ama 10 sano u dambeeyay dadkii idin talinayay ama idin arriminayay waxay noqdeen dadka noocaas iyagu ganacsatada noqday ee isku xiisiibtay inay ama xoolo ka ursan xasaanadii iyo xilalkii ay hayeen laakiin se taasi dhib u dhici mayse waxaan leeyahay reer Saaxil oo fikiro oo waxaad ama taageertaan oo codkiina ku sabood gareysaan dad ka turjumaya masiirkiina iyo danaha gobolka Saaxil iyo guud ahaan danta caamka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa reer Saaxil in maxay tolay ay runtii u codeeyaan in xisbigan wadani ee mucaaradka ah jiidihiisa iyo meeshan aanu ka soo jeedno waxa noo dheer annakoo qarana oo reera oo beela ayaa la yidhi ma shiri kartaan ma hadli kartaan ma afka juuq kama odhan kartaan jeelkaana lagu guray waana la xidhxidhay waana la caburiyey ninka musharaxa
muuse biixi la shaqayn jiray intuu tegey beela ka mida ayuu yidhi shirkan waa shirka loo baahan yahay wuxuu yidhi laakiin shirka baxaara saafka waa qaran dumis muuse waxaan leeyahay waa kuwii qarankaad lahayd waad duminaysaad cabburinaysae xabad codol laguma hayo dadku waa waddani soo waddani ma nihin